السلام عليكم maxaa ka jira warkan la isoo gudbinayo leeyahay mar ma ka hadli karaa Havila Masaylaba ma Yahuudi ba maanta kitaabadooda ku qoranta inay Soomaaliya ka mid tahay dhulkii Bani Israa'iil haddii aad eegtid Google marka hore waxa ku soo baxay ba afka hore ba Wikipedia oo ku sheegaya ba xagga inay beertii jannada iyagu ku tilmaameen markii xaawi aadan la soo dejiyay inaysan ahayn dhulkii Carabiya Iraq iyo kuwada kulmin xaawiya aadan ama Sacuudiga ee head Soomaaliya ayagoo adeegsanaya hadda kitaabkan abtirsigooda Table of Nations oo abtirsiga adduunka dhan lagu wada xusayo ee Kiristiyaankii Yahuudina isku wada afgarteen ee ku leeyihiin dadkan la dhaho Kushetiga oo Soomaalida ka tirsan yihiin waxa weeye aabahood hamna waxa dhalay Joktan wuxuu ahaa ina Shemna waa Nuux alayhi salaam inankiisa bay ku leeyihiin ayadoo saa hadana kugu soo abtiriyeen waxa ku leeyihiin marka hadana eegti hypothesiska Afrikaanta ayaa u badan tahay in xitaa dhulka Nuubiyada la sheegayo ama Suudaan degto ilaa geeskaas oo dhan lagu tilmaamayay ardal Kush ama dhulkii Kushetiga oo waliba xitaa lagu leeyahayna inay Soomaalidu ahaayeen dadkii asaliyanka Bani Israa'iil waayo hadana rabtina ogaatay maxaa ku duwan yihiin Bani Israa'iil iyo Yahuud qof walba noqon kara ba Polish kan hadda jooga Europe Yahuud ayay qaateen kuwan Khazarska ama Far East Asia degan oo halagaha diintan ay qaateen markay noqotay inay diin kala doortaan waxay noqdeen Yahuud bay qaateen laakiinse ma ahan ethnically ama dhiig ahaan abtirsi ahaan ma aha Bani Israa'iil ee diin ahaan u bayihina waa sababta keentay inaysan noqonayn marnaba inuu hal qabiil noqonayo cadaan iyo madow Soomaalidu waa dad madow Soomaha Faransiisku waa dad cadaan Soomaha saadaraad noqon kara mayso hadaba inay Bani Israa'iil noqdaan cadaan iyo madow ama madow bay ahaanayaan ama cadaan bay ahaanayaan Yahuudda ayaa laakiinse isku wada qasbanaysa laakiinse Bani Israa'iil wata keentay in maanta markii Etoobiyaanka ku sheegtay inay Bani Israa'iil yihiin la qaadayo laga qaabilayna Israa'iil la soo dejinayo way wax oranayaan waxaan ahayn tarankii Israa'iil ka taramay sida daraadeed hadda eegtay xitaa Bible-dan ay adeegsanayaan Genesis 2 ilaa aayadda 10 ilaa 14 waa kitaabkoodii waxa ku leeyihiin war meeshii wabiga soo kala baxaya oo beerta u kala qaybsamaya laba falaadood oo mid kamid ahaa Bishton qaybtii kalena dabeesha u leexisay Land of Havila dhulkii Havila oo ah sayr hadda doorkan laga hadlayo oo barwaaqo ka soo baxday dahab iyo aromatic waxyaalo udgoonayo oo khudaar iyo cid walba ka soo baxday laakiinse uu ahaa meel ee dadku Land of Kushetig dadka Kushetiga wada degi jireenba waa dhulkii Kushetiga meesha u barwaaqaysanba hadda inta ka soo gudbina u galno aayadaha kale iyo suuradaha kale ee adeegsanay kitaabadooda waxay ku leeyihiin waxa ahaayeen dad ka soo faracmay dhulkan Havila iyo Shur waa Soomaaliya dhulkeeda ilaa iyo geeska ama xadka Masar Egypt oo ahaa dad yani dagaalyahan oo kulkulul laba goodiyeela oo qabiil isku leen jirayba yani waa Soomaalida maanta la tilmaamayo hadda isla eegnana mapkan oo very important oo Bible-kooda laga soo dhex baxayba waxay arkaysaa inay xaggan tahay geeskii Africa oo Soomaaliyana xaggan tahay waxa lagu Sabteha waa Saba Arawelo yareereediba illa yo Sabta haddana Havila waa meeshan la isku haysto Havila Soomaa xagga waa meeshan leeyahay saylac weey waa meeshan leeyahay nabi aadan yahay ku soo dagayba haddana laakiinse waxa ku qonay xagga qaaradana waxa ku qonay haddana Havila meesha Sacuudiga Carabiga xigta waayo historyga marka laga waramayo leeyahay lacala xitaa nabi aadan yahay waxay ku wada kulmeen markii sare raadinayeen xadiidyada waxay ku wada kulmeen Sacuudiga iyo Iraq meelahaas waxa laga soo qaaday waxa soo sheekooyin iyo kaftan iyo qisooyinba kitaabadan Yahuudina maanta waxa ku leeyahay mataqana war anaka ayaa dhalay Carabta anaka naga tarmay anakana waxaan dhalay Soomaalidana dhalay Soomaali baan ku abtirsanaa Soomaalida marka waxa weeye waa Bani Israa'iil tii asalkoodaba waxa soo dhan waxa iga yaabi laakiinse inaysan warkan ahayn markii ugu horeysa oo dadku u soo gudbinaysa Soomaalida waayo waxa hore uga hadlay ninkan la dhaho Ardon Hanan Channel Somali Corner iyo Shu'aib oo waliba si details oo ka war badan oo ka gudagal badan oo ka cadeemo badan hadda waxaan idin soo gudbiyayba oo ummadii laakiin Soomaaliyeed intay ka jeedsadeen aflagaaday ay ugu dareen kuwii soo jeedsaday kaliyana oo gaalnimo iyo diintana kaga saareen taariikhdaas oo dhahayan waxay faafinayaan fircooniyad bay faafinayaan laakiinse maanta markii ay gaaladii iyo Yahuudii soo bandhigeen inay dhaheenba war hami baan naga galay maadaama adduunka inda dilacsanayo ee Soomaalida xitaa soo balaalugo soo oranayso taariikhda markaas ka wada leh inaanu sheeganaaba inay dhulka ay ku iska lahayn laakiinse
أنا كو كبوبنا حدان كبوبي كرنا إن عربتي بابا كبوبتي تاريخ دودية أنا كبوبنا نقول كرنا تاريخنا نبا ساد دراد waxaan ugu codsanayaa inaad fiidiyogan meel walba gaarsiisin dadkaas aan soo tiriyay Shucayb Hanaan Ardoon Somali Corner aad soo follow gareysiin soo daawatiin aflagaadadii caayidii aad u geysateen ka raali gelisiin ka soo badartiin taariikhdana hadii kale akhrista Bible-kaas akhrista Tooraadka oo sida diinta uga baxa laakiin se wixii hubaala oo cadeemana ka qaata hadii kalena khuraafaadka iska dul waraysta